kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada kuna soo dhawaada kanaalka qalbi Somali TV. daawadayaal waxaynu soo bandhigaynaa qisada dhabta ee ka dambaysa heesta uu soo qaaday fanaanka caanka ah ee loo yaqaan Sultan Seyraar. waa heesta loo yaqaan Aga ee uu oranayo fanaanku yartu waa qalanjee Aga, quruxdaan u bogay Aga, qalbigay surantay Aga. haddaba maxay tahay qisada dhabta ee ka dambaysa heestan? intayna mawduuceena u gudbin daawade haddii ay tahay markii kugu horeysay ee aad soo booqato kanaalkan qalbi Somali TV, fadlan ugu soo biir oo taaba calaamadda subscribe-ka kadibna furo calaamadda gambaleelka oo riix kuna soo dhawow barnaamijka. ugu horeyn daawadayaal fanaanka caanka ee loo yaqaan Sultan Seyraar waxa uu ka mid yahay fanaaniinta superstar-ka ee Soomaalida u soo baxay, sidoo kalena waxa uu ka mid yahay fanaaniinta magaalada Jigjiga iyo guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. sidaas oo tahayna marka laga tago fanaaniinta dhaantooyinka soo qaada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka soo jeeda, Sultan Seyraar waa fanaanka koowaad ahna boqorka codka ee halkaas. wuxuu kaloo ku jira 10 fanaan ee ugu codka macaan ama ugu sareeya fanaaniinta Soomaalida, waxaana taan ka marqaatiya daawadayaasha kanaalka qalbi Somali TV oo qaybta commentiga ku reebi doona taageerada ay u hayaan fanaankan qaaliga ah. haddaba daawadayaal intaa kadib Sultan Seyraar waxa uu soo qaaday hees magaceeda la yiraahdo Aga. heestan waxa uu oranayaa yartu waa qalanjee Aga, Aga, qalbigay surantee Aga, Aga, quruxdaan u bogay Aga, Aga, aniga ku qancay Aga, 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 Aga. sidaa darteed daawadayaal heestan magaceeda la yiraahdo Aga waxaa ka dambaysa qiso aad u weyn oo qayb ka ah nolosha fanaankan. sidaas ay tahayna heestan ilaa hadda dadku intooda badan ma aysan fahmin, laakiin halkan waxaan kugu soo bandhigaynaa qisada dhabta ee ka dambaysa heestan. intaa kadib daawadayaal fanaankani waxa uu heesta ku bilaabayaa erayadan soo socda, wuxuuna oranayaa qoodhaa raacday qalanjadayda, maankay qaaday qalanjadayda, xiskaa qaabilay qalanjadayda, ana waanu qiray qalanjadayda. balse si aynu u fahno qisada dhabta heesta ka dambaysa, horta erayada koobaad ee isticmaalaya fanaanku waa erayo aad u waaweyn. waa erayo marka fanka iyo suugaanta la eegayo la oran karo waa erayadii hore. yacni erayga imika qoodhaa raacday qalanjadayda waa eray aad iyo aad u weyn run ahaantii. qoodha waxaa loo isticmaalaa waxyaabo badan, laakiin si aynu u fahno qoodha raacday qalanjadayda marka uu leeyahay ayaynu tafatiri doonaa. sidaa daraaddeed qoodha waxaa loo isticmaalaa geela markuu baarqabka yahay, sidoo kalena waxaa loo isticmaalaa qofku markuu maaragtay qof xoogan oo adag yahay, sidoo kalena waxaa loo isticmaalaa guud ahaan ninka ragga ah baa qoodha loo isticmaala, laakiin dumarka looma isticmaalo. sidaasay tahayna neefka geela marka uu qooqan yahay ayaa la yiraahdaa qoodha. marka Sultan Seyraar lama oran karo wuxuu ka wadaa qoodha raacday qalanjadayda, macnaha qooqanaantayda ayaa raacday qalanjadayda. laakiin qoodha uu ka hadlayo isagu waxa weeye isha ama aragtida weeyaan. qoodha raacday qalanjadayda Aga, Aga marka uu leeyahay macnaha indhahayga ama qoraansigayga ama jaleecadayda ayaa raacday qalanjadayda weeye. sidoo kalena yacni marka uu leeyahay maankay qaaday qalanjadayda, taasi waa iska caddahay oo maanka waxaa la yidhahdaa qalbiga ama halka qofka biniaadanka wax ka dareemo. sidaas ay tahayna maankay qaaday qalanjadayda markuu leeyahay waa qof yacni qalbigiisii degay oo noloshiisii degay oo maaragtay yacni markastoo uu xasuusto qofkaas yacni qalbigu uu soo damqanayo ama soo hiraahirayo ama soo yacni boholyoobayo. sidaas ay tahay fanaanka loo yaqaano Sultan Seyraar maankay qaaday qalanjadayda waa qof dhab u jecel yahay. haddaba si aynu u fahno heestan weli xiskaa qaabilay qalanjadayda marka uu leeyahay fanaankani iyaduna waxa weeyaan qof maaragtay maankii iyo weliba maskaxdii degtay weeyaan. sidoo kale ana waa u qiray qalanjadayda marka uu leeyahay waa qof uu la dhaqmay islamarkaana uu arkay islamarkaana noloshii la qaybsaday. saas ay tahayna yacni waxa uu leeyahay ana waa u qiray qalanjadayda, qofaad meel kula nooshahay islamarkaana ama jacayl iska dhaxeeyo oo maaragtay yacni mar walba aad arkayso
oo mar walba maaragtay indhahaagu ay ku doogsanayaan ayaa la yidhaahdaa annaga waa u qeyra qalanjadayda. sidoo kalena waxaa la yidhaahdaa qofka bini aadamka yacni markii sheedda aad ka aragto sida uu sheegay isagoo laftiisuba uu yidhi qoodhaa raacday qalanjadayda, markii aad sheedda ka aragto qofka biniaadamka iyaduna waxay yacni kugu keenaysaa inaad qofkii u qirto yacni markii indhahaagu ay qabtaan inaad u qirto wanaag iyo weliba qurux iyo maaragtay wax kasta oo qofka ku aragtay. haddaba ereyada ugu horeeya ama halqabsiga heesta ugu horeeya waa intaa, bal waxaan u gudbaynaa qaybaha dambe. haddaba intaa kadib daawadayaal, fanaankan qaaliga ee loo yaqaano Suldaan Seyraar heestan waxyaabaha uu ku cabirayo waxaa ka mid a yacni waxyaabaha dumarka lagu doorto. yacni ninka ragga marka uu gabadh guursanaya ama gabadh nolosha la wadaagaya ama uu arko ama uu la nool yahayba, waxyaabaha uu ku doorto waxaa ka mid a qofkaasi inay tahay qof yacni aad iyo aad yacni u dhowrsoon. soomaalidu waxay yidhaahdaan cagtii joogsan weydaa mar bay ceeb la kulantaa. haddaynu si kalena nidhaahno yacni qof aan dheerayn weeye. sidaa daraaddeed erayadan qaybtan soo socota waxa uu ku bilaabayaa sidan. waxa uu leeyahay qunyar socod weeye quruxsantayda, qosolkeeda ay deeqay quruxsantayda, qasriga wadnahay degtay quruxsantayda oo u khushuucay quruxdeeda. sidaa daraaddeed bal aynu yaro eegno islamarkaana dulmarno islamarkaana waxa uu Suldaan Seyraar uga jeedo bal aynu aragno. marka uu leeyahay qunyar socod weeye quruxsantayda, yacni waa qof nolosha marka aan sidaa u eegaba iyo markastoo iga soo horbaxdaba yacni boholiyowga aanu qabo yacni aan jeclaanayo islamarkaana aan odhanayo dumarka kale oo dhan yacni tan baa ku deeqday. sidaa daraaddeed run ahaantii Suldaan Seyraar waxa weeye fanaan xaas leh. sidaasoy tahayna maadaamuu ereyada leeyahay waxa uu odhanaya waa xaaskiisa, waxa uu ka odhanaya yacni u soo jeedinaya waa xaaskiisa. sidaasoy tahayna yacni qunyar socod qofka uu sheegaya waa xaaskiisa. run ahaantiina waxa weeyaan qof uu aada u jecel yahay. dhinaca kale bal haddaynu eegno maadaama xaaskiisa la nool yahay, qosolkeeda ay deeqay quruxsantayda ayuu ereyada sii raacinaya heestan. sidaas darteed qosolkeeda ay deeqay qof bini aadan oo kula nooloo habeen iyo maalin kuu sheekaynayo mar kastaba yacni wanaagaaga iyo maaragtay ka shaqaynaya horumarkaaga oo guri ku wada nooshiin. qofkaasi waxa weeye marka uu qoslo yacni waad ku farxaysaa, niyadaad ka farxaysaa, waxaad jeclaanaysaa qofkan inuu weligii qoslo. sidaa daraaddeed Suldaan Seyraar waxa uu leeyahay qosolkeeda ay deeqay quruxsantayda marka uu leeyahay guud ahaan waa xaaskayga. sidoo kale qasriga wadnahay degtay quruxsantayda oo u khushuucsan quruxsantayda, yacni qalbigiibaa raalli ka noqday buu leeyahay fanaankani. sidaasoy tahay waxa uu leeyahay qalbigiibaa raalli ka noqday, yacni qasrigii wadnahay degtay yacni qalbigii iyadaa yeelatay oo hanatay. sidoo kalena quruxsantayda uu khushuucay qalbigu. khushuucda waynu naqaanaa qofku markuu salaada ku jiro ama markuu wax u muraaqoodo. sidaa daraaddeed qalbigaygii oo dhan iyadaa hanatay ayuu leeyahay. haddaba daawade iyadoo ay noo soo socoto qeyb muhiima oo fanaankan iyo heesta cusub soo saaray ee agal loo yaqaano ku saabsan, balse marka hore bal ila arag fanaankan iyo sida uu jecel yahay xaaskiisa iyo qiimaha uu hayo. adaa amuney qalbiga ku nool maankiyo sadriga, adaa muxibada wadanaha ku beeray jacayl mugu weyn. intan dumar mahganaa dookhayga adaa mulkiyay, mawlanay ka qoro amooniga mudan jacayl, mawlanay ka qoro macaaniga mudan jacayl. intaa kadib daawadayaal, halkaa waxaynu ka fahnay in fanaanka loo yaqaano Suldaan Seyraar uu xaaskiisa aad iyo aad u jecel yahay. taasina waa wax uu isagu ku ammaanan yahay. sidaasoy tahayna qaybta labaad ee heesta ama bejka labaad waxa uu ku soo qaadanayaa erayo aan caqligal ahayn, yacni erayo la odhan karo waa ammaantii ugu qaalisanayd ee la tiriyo muddooyinkii ugu dambeysay. waxaana ka mid a erayadaas waa qaali dumar qalanjadayda, waa qiimo badan qalanjadayda, qorqornaanta wacan qalanjadayda, qeyrkeedu way ku dhaaftay qalanjadayda, qumana quruxsantayda, qoortana u dheeraa quruxsantayda, qisay igu dhex leedahay quruxsantayda, waana qayb naftayda ka mida quruxsantayda. bal haddaba aynu kala qaadno. haddii uu ninku gabadhiisa yacni ninkuu naagtiisa ammaanayo
yacni xaaskiisa ammaanayo waa wax yacni aada ugu qaaliya, wuxuuna ku ammaana wax kasta oo bini aadamku yacni qiimo la leh. isagu waxa uu ku ammaanay shay qaaliya, waayo waxa uu leeyahay Suldaan Seyraar waa qaali dumar qalanjadayda, waana qiimo badan qalanjadayda. yacni waa qaali dumarka oo dhan bay ugu qaalisan tahay ayuu sheegay. waana dee wax loo qirayo oo fanaan kasta ama qof kastoo bini aadana qalanjadiisa waa la qaali, waana qiimo badan qalanjadayda. isagana yacni qiimo weyn ayay ugu fadhidaa. yacni taasina waa wax magaranaysa loo qirayo oo la odhan karo fanaankani ama qof kastoo bini aadana qofka uu jecel yahay qiimo weyn buu la leeyahay. dhinaca kale qorqornaanta wacan qalanjadayda iminka waxaad moodaa inuu u soo galay yacni inuu sifeeyo oo bulshada u sheego yacni xaaskiisu siday u quruxda badan tahay. alxamdulilah, ilaahay ha u daayo. marka wuxuu leeyahay qorqornaanta wacan qalanjadayda qayrkeedu way ku dhaaftay qalanjadayda. run ahaantiina waa waxyaalaha uu ku soo doortay bay ka mid tahay qorqornaanta wacan iyo gabadh qurux badan inuu ilaahay ku manaystay. qumana quruxsantayda, yacni marka uu leeyahay qumana quruxsantayda macnaha waa qof dee qumanaan iyo qurux ilaahay siiyey. dhinaca kalena qoorta u dheeraa quruxsantayda weli uu sii faalaynaya fanaanku oo wuxuu faalaynayaa xaaskiisa yacni quruxdeeda iyo maaragtay iyo qofka ilaahay ku manaystay. qisay igu dhexleeda quruxsantayda buu leeyahay, macnaha qof kastoo bini aadana qofka uu jecel yahay gudihiisa, yacni haddaad qof jeceshahay gudahaaga waxa ku jira waxyaaba aad isweydiinayso oo aad ilaahay uga mahad celinayso. ilaahay qofkan isii, ilaahay qofkan waan helay, ilaahay qofkan iyo anaga dhexdeeda baraka dhig. marka waxyaabahaas oo dhan baad isweydiinaysaa. marka wuxuu leeyahay qisa igu dhexleeda quruxsantayda. ugu dambeyntiina waa qeyb naftayda ka mida quruxsantayda. taasina waabay caddahay oo waxa weeyaan fanaankani heesta guud ahaanteeda waxa uu ku soo koobay ammaanta uu u hayo xaaskiisa. taasina waa waxa weeyaan nin kasta uu ku ammaanay hadduu xaaskiisa ammaano. haddaba qeybta saddexaad ee yacni falanqaynteena ayaynu gudbaynaa waa ereyga aga. ereyga aga muxuu yahay? ereyga aga waxa weeye erey laga isticmaalo dhulka dowlad deegaanka Soomaalida iyo meelo kale Soomaalida kamida. run ahaantiina fanaanku wuxuu horumarinayaa lajahadiisa ama ereyga ama halqabsiga Soomaaligiisa. ummad waliba halqabsi bay leedahay. iminka waxaa jira ereyga aga waxa weeyaan dad badan baa isticmaala Soomaaliya, yaaqi dad badan baa isticmaala, haja dad badan baa isticmaala, dhaga dad badan baa isticmaala. marka ereygiisu horumarinaya. sidaa daraadeed ereyga aga inuu horumariyo fanaankani oo markaa afkiisa horumariyo iyo deegaanka uu Soomaalida ka soo jeedo waa waxa uu ku amaanan yahay. qof kastoo bini aadana waxa loogu talagalay ama qof kastoo bini aadana laga rabaa inuu horumariyo afkiisa iyo halqabsiga afkiisa. marka sidaa daraadeed Suldaan Seyraar run ahaantii waan ku ammaanaynaa inuu afkiisana horumariyo, gabadhiisana ammaano, isla markaana uu yahay fanaan qaaliya oo qalbiyadeena aada ugu weyn.